marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wasiirada haweenka iyo xuquuqda insaanka iyo xildhibaanada dhammaan gudoomiyahayga agaasimayaasha dhammaan qof walba ay title-ku ku fadhiyo haweenka quruxda badan ragga walaalaheena iyo mas'uuliyiinteena ayagana qayb ka iyo media waxa idin leeyahay mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib barasho wanaagsan magacaygu waa Zainab Maxamuud Warsame Zainab Xabsi waxaan ku dhashay kuna barbaaray magaalada Muqdisho degmada Warta Nabadda X Wardhiigle waxaan wax ku bartay degmada Warta Nabadda iskuulaad ku yaalay dhanka Howlwadaag waliba daris dhowna la ahaa dugsigayga hoose dhexe saraba aan ku qaatay burburkii dadku saameeyaan ku jira oo xaaladihii burburkii hore ma aha burburada badan iska jira wadanka marka burburkii dhexe wadanka Itoobiyaanka iyo buuqiisi badnaa markay jireen waxaan u guurnay Kenya waxbarashadeedu ku sii watay waxaan ku soo noqday dalka 2011 dhamaadkiisa waxaan ku faraxsanahay inuu ustaadkayga caawa rag halkan fadhiyo uu ka tirsan yahay iguna qalqaaliyay anoo Muqdisho niyad badan u heenin oo xaalad ka taagan iyo nimanka shabaab ah oo markaas haysteen iyo xaaladaha lagu jiro iyo anoo wadanka ku cusbay ayagana Professor Yaxye aan rajeynayo qof kasta idinka kamid ah inuu halkan fadhiyo oo garanayo wuxuu ahaa dadkii igu qalqaaliyay magaaladan inaan wax ku barto oo family friend aan ahayn waxbarashadeeda heerka jaamacadeed halkan aan ku dhameeyay qaybteedii kale waxaan takhasuskayga oo yahay international law ama gaar ahaan human right waxaan magaaladan ka soo shaqeynayay si voluntary waqti badan oo aan anigu mararka qaar meelaha aan volunteerkaas u aadayo ama iska wax u qabsa ama isxilqaan aan u aadayo meel aad uga fog markaas deegaankayga oo mararka qaar laga yaabo inaan u lugeeyo oo awoodi karin in aan iska bixiyo transportation-kii ama xaaladaha aan ku jirno qoys ahaan mararka qaar waalidiintu inay ku dhahaan baa laga yaabaa waxbaa ku barnay intaana socotaa lacag soo shaqee lacagta keen ama fariiso guriga ka shaqeey waxaan marka hore rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo hooyaday macaan oo ahayd role model-kaygii maadaama ay korisay 11 canug oo quraankii ay bartay waxbarashadii maadigaana ay bartay tii diinigaana ay bartay oo laf dhabar noo ahayd reerkeena waa laga yaabaa inay gabdhuhu dhahaan hebel role model iyo laakiin hooyaday baa role model-kayga ah ayadaanan uga adkaysiga badan nolosha adag horumarada aan higsanayo ay tahay qofka aan uga tusaale qaato markaan u soo laabto arimahayga horumarinta arimaha bulshada aan ka soo shaqeynayo intaas voluntary waxaan shaqadeeda ugu horeysa ka bilaabay rugta ganacsiga iyo warshadaha oo markaasi sida hore loo sheegaba aan ka mid noqday xogeymihii gudoomiyaha hadda jooga gudoomiye Gabayre intaana waxaan ka soo shaqeynayay programyo mashaariic aad u badan oo adag anigoona private ka u shaqeynaayo baa haddana waxaan ka shaqeyn jiray arimaha bulshada hay'adaha oo ololeeya haddii noqon lahaayeen ururada dhalinyarada jaamacadaha oo ku faraxsanahay teamkii aan isla wada aasnay maanta meel fiican wada maraayo wada mas'uuliyiina inay halkan fadhiyaan sida Faadumo Cabdi Cali oo xogaaya ku xigeenka xafiiska xogayaha joogtada ku-xigeenkiisa xafiiska wasaaraha wasiir Xaniifa Muna Ahla team badan baa ku fadhinaa oo caawa halkan aan moodid qofkoodna ma aan ogeyn inuu imaanayo kulanka by the way waqti adagna soo wada qaatay sida ay ahaataba waxaan jeclaa mar walbaba inaan u shaqeeyo bulshada haddii noqon lahayd iskuulka waagaan dhigan jiray ilaa iyo markaas aan private ka u shaqeynayo mar walba waxaan jeclaan jiray inaan wax organize gareeyo fikrad ani aan leeyahay aan dadka geliyo fikradeydaas ay noqoto maanta dhan wixii la hadalhaayo la socodsiiyo lagu mashquulsan yahay waxa aan qabanayo inay noqdaan something different dadka kale waxay sameynayaan maanta alxamdulillah waxaan ka soo shaqeeyay institutionada dawladeed ee ka mid tahay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee ka mid tahay wasaaradda maaliyadda ee ka mid tahay wasaaradda dastuurka oo agaasimahayga marna macalinkaygii uu halkan u fadhiyo oo ah run ahaantii nin haweenka aad u jecel walow hadda kursi intuu soo waayay cadaawad buurahna la kala dhex dhigay marka wasiir gabdhihii waaye wasiiraan kuu saadaaliya macalaas biyaa insha Allah waxaan rajeynayaa wasiirka dastuurka inaan noqon doonto maadaama kursigan uu macno weyn u sameeyay xildhibaanimada technicalkaaga iyo hawshaadaan ogahay maanta waxaan ka tirsanahay anigoo wasaaradda dastuurka joogo baan
ilaahay wuxuu ii qadaray inaan maalin anoo programka shaqo ku jiro wasaaraddu ay leedahay hotel jaziirana joogno dad badan baa gudoomiyaal degmooyin wax raadinayeen marka aniga ma ahayn markaas targetkayga inaan gudoomiye degmo noqdo maadaama aan wasaarad u shaqeynayo haddana team saaxiibo ah aan lahaaya waxay yiraahdeen waxun waa ka bedeli kartaa systemka hadda cusub oo gudoomiyihii hore gobolka banaadir duqa magaalada muqdisho taabid cabdi uu markaas asagana magaalada ka dooranayay tiimam uu isdhihi karo waa isla jaanqaadaysiin sidaas baa marka waxaa liigu qalqaaliyay inaan wax un ka bedeli karo marka aan imaaday waxaan u xafiis iyo report iyo shaqo iyo horumar dhinacyo kala duwana baan ka imid markaan imid waxaan ka bilaabay zero oo maanta dhan inaan maxaa la yiraahdaa xafiis aan reportyo iyo waxba la diyaarinaynin oo dad maanta dhan inaan banaanbaxyo oo nadaafad iyo wax aan ka shaqeyno technically shaqadii aan bartay aanan ahayn inaan haddana bilaabo haddana waxaan arkay waxa ka shaqeynaya dadkan dhan inay yihiin haween majority degmada waxay ka shaqeynaa oo dhinacaaga taagan oo ku garab galaayo oo la eedeynayo oo haddana qof shaqeeyo oo lacag ku qaatay aysan jirin markaa arkay hooyo 70 kor u dhaafayso oo $1 qaadanin iskaba dhaaf dollar shilin Soomaali aanan qaadanin baan is irey walaahi meeshan marka hore waxaan dhihi jiray waa ku soo khaldantay dadkan waxay raadinayaan baa dib iigu soo dhacday hooyaday aabahay iyagoo ay dhihi jireen wadanka waxaan ugu soo shaqeynay si isxilqaana halkaas baan wax ku soo dhisnay iskaa wax u qabso ee ahaan jirta hadda isxilqaanka ka dhignay sanooyinkan dambe magacaas loo bixiyay laakiin iskaa wax u qabsan ku soo dhisay markuu aabahay ay dhaho meelo badan oo hooyo ay tiraahdo waxaan marka go'aansaday inaan raadinin qarashkii iyo magacii iyo howlihii waaweynaa ee ku fakiri jiray rootki aan ka bilaabo community-gayga inaan wax ku celiyo maanta alxamdulillah waxaan maraynaa in wadankii annaga nafteeni maalkeeni intaba aan u gelino sida dad badan ee hore u ogyihiin 2012 ahayd waan idinka soo iloobay markii aan ka badbaaday cadawga anoo hay'ada iyo wax la shaqeynayo private in dhibaato ay ugu gaartay cadawga target ay iga dhigteen oo ku dhaawacmay waan maana u joojinin horeyaan shaqadeedii ka watay degmada markaan imaaday hadda oo shaqooyinka ugu badan oo muhiimka ahay aan ka howlgalayna dhowr mar baa maxaa la yiraahdaa dadka sida hore u sheegaba ani waxaan ahay jecel inay ka dhex muuqdaan meeshii joogaan haddii kale inaan iska joogo inaanan aaminin in aniga maxaa la yiraahdaa wiil uu iga sareeyo oo iga sareeya diiniyan dhaxalka iyo arrimaheedii inuu 100 yahay laakiin inta kale adduunka loo nool yahay waa simanna waxyaalihii diinta marka xagga aan soo dhigno oo qof ku heysatay aysan jirin 17 degmo baan gobolka banaadir uu yahay 5 degmo baa gabdho ka ahayn meeqa rag meeshaas ku jirto waa 12 kaas aan miis la soo fariisanaa markaasna waxaan focus gareynaynaa guud ahaan waxaysan ayagu focus gareynin gabdhaha kale ee walaalaheeya aad bay u dadaalayeen laakiin mar walba waxaan jeclaan jiray number 1 iskool hadaa dhigto wax hadaa qabanay number 1 keygii wuxuu noqday inay cadawga ay dhahaan naagtan ayada booliiska la shir nabsugida la shir bulshada kale la shir inta orod kan samee maalinta dambe waxaa la fidnadaba ayada waay madaxweyne geey xafiiskaaga wasaaraha inta maanta wasiirkee meel walbo gaal ma keenaysa hay'ad ka shaqeeya mid kale wardhiilay dhan waxay noqotay in maxaa la yiraahdaa xafiiskeeni uu indhaha bulshada uu soo jiito cadawgana mar walbo indhaha ay dadka soo qabanayaan waxay noqonaysaa target inaan sii noqotid ilaa wuxuu qadaray inay soo weeraraan oo degmada nagu qarxiyaan alxamdulillah ilaa waxba iguma gaarsiin 2019 May ahayd waxaan usoo gudubnay July 2019 inagoo shaqo ka nimid howlaheena ku jirno oo howlo muhiim ah markaas message-ka caasimadana muhiim u ahaa ku jirnay oo maalintii iska faraxsaneen baa dhib nagu dhacay dhibkii nagu dhacay wixii kugu sameeyayna waxay noqday wax kula shaqeynaa sida lagu sheegay xanuun kale waa iyadana oo qofka gabarnimo iyo maxaa la yiraahdaa gabar maane xitaa waxa u maleynaa rag badan oo caawa halka fadhiya de waxyaalaha qaar ku dhici lahaayeen inay ayaantan waa la shubmaya la sheegay inaa la arki lahayn u maleynaya saas ay tahay qof ma tahay muhiimada koowaad ee ani ajandahayga wuxuu yahay ilaahay aamin waxa aad rabtana ilaahay ku kalsoono qof kaleetona caafimaadna kuma siin karo hantina kuma siin karo xilna kuma siin karo awooda aad leedahay aamin ilaahayna ku tasho oo kaliya
taas bay ahayd maalintii waxay ugu dhaceen 2019 July 23 anigoo dhaawac ahaa waxaan aaminay dhaqaatiirta waxa dhan dadka ordaaya qofka igu ooynaya qofka kale in dhammaantood hadday isku tagaan qof walba uu rabaa inaan maanta bogsado laakiin qofka iga qaadi kara xanuunka markaas aniga aan dareemayo qofna waxaan dareemay inay waxay ii gaareen ay tahay dalka haddaan aniga gurigayga joogi lahaa oo hooyo dadka qaar baa wasiir xaniifi iyo ku jiraan saaxiibadeeda aadka u dhow ahay Muna Axla Faadimo Cabdi Cali qiso kale gaar ahaan leeyahay waan ku guursaday anoo gudoomiye degme ah waana ku ilma dhale but nobody ogaay ma jirto shaqadana kama maqnaan 7 biriyan fasax ku maqnaa oo shaqo caadi inaan ku maqnaayo u maleynay markaan dhaawaca ahay bay dadka waxay arkayaan canugteedii iyo sidaan iyo kan saaxiibadii gaarka isweydiiyeen war maxay tahay hawshan socdo goormay gabadhan ilmaha dhashay oo shaqadan goormay idinka dambeysay surprise kale ay ku noqotay horta hooyo kasta ee anaga maanta in soo dhashay waxay soo marin ma mareeno xanuun aysa ayada arkin ma arkeeno taas aan markii ii ahayd waxa la xanuunsanaa iyo wala caalamara iyo wala dhala iyo umula loo baahan yahay 40 days iyo gurigaaga inaad jiiftid waaydo hooyadeen ilmaha ka gargareynay shaqadaadina heesto waa guuleysan kartaa qarankan uu guuleysanaya shaqada uu heesto waxa soo dhan markii la isku soo duuduubo wadankan dib ugu soo noqday maalintii aan soo noqday magaalada tiimkii igu qalqaalin jiray inaan wada shaqeeno oo dawladda aan u shaqeeno Faadimo hadda waa ay ka dhuumatay inaan sheegaa rabaa Faadimo hadda ay ogolaatid waxaan dhihi jirnay marti ma noqonayna anaga sidee marti ku noqonaa wadankan maalin walba wax baa qaldan wixii qaldan banaankan ka taaganahay oo anaga asleenahay waa sixi kartiin wasiirkan la kulan madaxweynaha la kulan agaasimahan arag wixii waxa asleenahay wax u waa bedeli kartiin go'aankaas qaadanay anagoo tiim badana qof walbana meeshuu gali karo ku galay qaranka uuna shaqeynay markaan soo laabtay dhalinyarada waxaan ku dhahay idinka ahayd shalay qof dadkeena dhiirigelinayo inaan wax bedelna aysa ahayd laakiin qalbiga ani hadii maanta qalbiga uu isku ka dhaxyaaci lahaa oo wax iga gaari lahaa in xusuustayda ay tagi lahayd lagama yaabi lahayn inaan wadanka ka shaqeeyo laakiin waxa i gaaray waxay ahaayeen wax yar oo jirka ah jirkana waa wax laga qabsan kara ama aad ka socon kartid oo wax weyn aysan ahayn sida ogtiin wiil walaalaha jiray oo nala dhaawacmay oo maxaa la yiraahdaa indhahana wuu beelay lugiga gacanna wuu ka go'ay niyadiisana wallahi ma sha Allah tayada way ka sii wanaagsantaa marka qofku wuxuu ka nool yahay damiirkiisu waa qalbigaaga oo wanaajisidna wax walba way gaari kartaa sidaas daraadeed baa wadanka ugu shaqeeyaa soo noqodkayga aan soo noqday uguna shaqeynayay hal hadaf aan lahaa waxay ahayd inaan dadkii iyo deegaankii qof walba mid idin sheega caaw waxyaalaha oo mujaamalada ma jecel ani inaan runta ka hadlaa jecla qof kasta qoys uu ka dhashtay qoyska ka dhalatay waxa ka dhalatay qabiilka si dhalatay qof maanta meel reer qurac iyo reer qansax أنا كو أكتر سنين مجرته I don't care إن ما أنت اللي سده بيش شنادي أنت وعي كم وح كلا ود بدن من مجرته قف كستاي وود النفسية يسوي سامسيها هذه ما أنت أتقوس كدلت قبيل كدلت هرمركو ذاك شقي الصومالي ويقول السنة ولا ليالو جود هان أبو قرنك وشقيناي أبو ضدك violence هينو ما أنت لأن دبعته قرنك يكون هايان بربرك iyo eedaha qaranka u soo jeedinay oo jeedid ina luga isaarti Soomaali waa nabadaanu ka shaqeynaa cirkaana marnaa koo qaladaadka tusi qofka qaraabadaada oo ka shaqeynayo qaranka burburintiisa iyo dhibaatadiisa nin haduu yahayna tusi gabar haday tahayna I don't think inay gabar qaranka burburinayso saaka dhan u taagan inay bijirtay aan taas ku laabano waa ku xalin weyne 30 sano waa ku xalin weyne ina maxaali oo ku dhalanay waana ku ilma dhalanay wixii ka dhacay wadanka waxaan rabaa ugu dambeyntii waxaan doontay maxaa la yiraahdaa xilibaan marka next planka ilaahay haduu ii deysto cimrigeyga waxa aan rajeynayaa rabaa inaan idin la wadaago oo dumarnimadeeda ee gabdhahan walaalaheena waxa rabaa inaa qaadataan marna ha ku hungoobin hana raadinin wax qof kaleeto aa u agfaisid that means hadaa tiraadid maanta dhan aniga caasha la yiraahdaa faaraxan sugaaya xaliima kala sugaaya inta sugaaya xaliima horto inta ku soo qabato aad leedahay maanta saas ma jirto albaab baan rabaa marka inaa idin furo meel walba tigtiin waxa lagu leeyahay yaa quwata hebel ma quwata iyo hebel ma quwata ganjaalkaas waxa rabnaa next election oo Soomaaliya imaan doonto
you will see waxaa la arki doonaa in la dhaho Zainab ay wadato gabdho badan oo dhahayaan. That's my plan. waxaan ka daalnay inaan dhaho hebelaana wato why not ani hadda waxaan dhahay wasiir Xaniifa ay wadato by the way ayadaana isoo dhigto meel walba waxay dhahdaa kursiga Zainab Xabsi wasiir Xaniifa marka maxaa kaliya u baahannahay financially inaan noqono dad isku tiirsan oo haween isku tiirsan la arko nin walba wuxuu ku tiirsan yahay yaa been la idin sheegin ani hadda waxaan aad u daraasaynahay last 1 year nin kasta oo istiraahad maal qabeen waay wallahi dhaqaalihiisa ma ku soo baxo qof kale uu ka soo qaataa qayb tiisi gaarka ahayd 100% ma ku soo baxo waa la soo kabaa hadsadoo la soo kabaayo ma ani igu cabsiina inuu haysto hanti no way inuu igu cabsiyo oo meel walba oo maxaa la yiraahdaa uu yiraahdo anaa mudan iyo anaa inta marka gabdho maskaxdeena aan ka saarno inaan dhahno dhaqaalaha ma haysano yes dhaqaale ma haysano laakiin dhaqaalaha nimanku ay haystaanba ma aha mid ayaga kaligood maxaa la yiraahdaa ay shaqaystaan waa wax la isku soo contribute garay cuqdada iyo aan iska dhaafin xaqdiga aan tusino gabadha kale haday ka hormarto inay gabadhan sharafteeda ay tahay waan ku faraxsanahay inay wasiiradeeda Xaniifa tahay oo wasaaradda haweenka joogto oo teenage ay tahay waan ku faraxsanahay inay xogayaha ku xigeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha ay tahay Faadimo Cabdi Cali waan ku faraxsanahay inaan oo gabar yar gudoomiye degmo ahay so waa ina idinkana intaasna dareensiisiin inaan gabdhihii teenage-kiina ahaayeen aan ahay ee aadanna dareensiinina Faadimo waxay u joogtaa reerkeeda meesha keena Xaniifa waa hebel wato meesha taas ku heshay wax aan ku helno malaana nasiibkeena iyo aqoonteena ku helnay idinkana intaas oo kala idin karaba yees raggu idin abuse gareenin quruxdiina idin kaga qaadanin wax walba u baahan tihiin iisan idin ku sarifanin gabdho waa guuleysan kartaan kalsoonida naftiina ku qaba ragana waxaan leeyahay walaalayaalow idin ma xumeeyeenno xumaan hadaan ugu sameysayna cafisaatihiin let us together in wada soconno 2022 wax badanna maxaa la yiraahdaa 30%ga iyo howlaheeda waa la isku soo riixay oo hadda xoogaha wax badan way shaqeyn waysa 6 wiil la sharaxanahay waxaan rabaa inaan kuleetiga kula soo dhawo hal cod hadaan keeno أنا أكون قناعسن هذا سوق هذا نه قبله ودنا أكون قناعسن وما سنتين